السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ديجي شام halka naga daawanayso waa bashka balcad. Maanta waxaa haynahay rays ku saabsan yaa diiwan lahayd madaxweynaha wadankeena dalka Soomaaliya. Soo dhawow bashka balcad. ku dhawaad walaal. Magacaada saddexan. Abdullahi Maxasan. Soo dhawaad Abdullahi halka waxa ku wareysan rabaa oo ogtahay golaadka doorashada inay dhacayso dalkeena Soomaaliya. Marka adiga ahaantaada yaa madaxweynaha u diiwan والله hortaan ahaantii waxa uu dhiibi lahaa farmaajo u dhiiban lahayd sababta ugu dhiiban lahayd farmaajo xita marka wallahi wadan korta isbedel iyo waxyaalo badan oo ka soo biyay marka ummadana waa u jeedaa marka waxa uu talaa ummad Soomaaliyeed marka idina u dhiibaan marka farmaajina u dhiibaan marka mas'uuliyadda nin khad kala mar walba u dhiibtaan dhanka siyaasadda aan ka baxno dhanka aan u gudubno dhanka social media keeba maanta dhiilaad raabka Sharma Boy mise ilkaas kee dooran والله بلا أنا شرم بوا كواستا بمشي. أوكي شرم بوا كواستا. شرم بوا محكو جعله. شرم بوا حكو جعله ساعة ورتنين أو ورت سلويني كسامة مفهمنا. مركني يوانين أو محا مرة والبرد يعني يرى إنه يرجلي أو جعل. مركزاس حكو جعله مركزيس إنه محا يعني قفك خبكره. صح. مركزاس حكو جعله أنا هانتي. صح. أوكي وكم حسن تيسان نوبر قاد برنامج كنا. سودو. إن شاء الله. ودو بشك بالعد. كده ولا. ما قاعدة. صفا halka waxaan raynaa ku wareyso ogtaa marayna waqti doorashada wadankeena Soomaaliya ka dhacaysa la gaaray ahaan maanta yaa dhiilaad xilka u dhiibanaya maanta yaa dhiilaad doorashada waa la gaaray maanta qofkaas hoggaan ku dhiiban lahaa farmaajo sababta ku dooranayso waa maxay oo wana kan Soomaa waniga kan Soomaaliya wana kan inuu dhiibo xilka saxada gartay ahaan xagga marka u gudubno dhanka shacabka misna dhanka oo maxaa ku dhacay dadka oo maanta social media ahaan marka oo dhanka raabka misna dhanka heesaha Sharma Boy mise ilkaas kee waa dooran lahayd maanta Sharma Boy dooran lahayd sababta ku dooranayso waa maxay Sharma warkaas bisinka adduunka kala hagaaniyo kaas aniga waa ku haystaa hal waxa ku xasta waa manuushi kartaa dhig kartaa migdaaftida waa la yaabay isku dayay caadi waay عيال كودا اوكي ما سنت برنامج كان ابو قدا سودو ولا السلام عليكم وعليكم السلام سته في عنا سته وفي عنا الحمد لله كسودو باش كبلعد كسودو كدو ده اوكي halka waxa rabo inaan ku wareysto ahaan waa ogtahay doorashada dalkan Soomaaliya inay dhacayso yaa ahaan u dooran lahayd madaxweynaha yaan u dhiban lahayd hoggaanka farmaajo sababta ku dooranayso farmaajo waa ninka oo dadka dhan iyo asxaabtiis dadka oo meeshaas la shaqeeyaan dadku u saacadeeya iyo kuwaas oo kale la rabo so farmaajo insha Allah hareeyo dadka dhan inaa fahmo waaya Somali needs to become a unit it needs to increase it needs to become one tribalism is too far we've been taken over by UAE and it's time we take back our land so Farmaajo I appreciate everything he's doing wax walba asiga aad sameeyay waan jecelahay oo u faraxsan yahay dadka dhan way jecel yihiin okay saa oo noo qaadatay xagga oo gudubna siyaasadda iska dhaafno xagga oo gudubna xagga social media misna xagga fanaaniinta keeba maanta u dooran lahayd raabka Sharma Boy misalkaas wallahi su'aashaas wallahi ina dadka waaweynkiina la weydiiyo because I'm a university student. Of course. So I have beliefs in the future, so not the past. So you know that this is a future, but we are in social media, of course. Yep. Yes. But of course, you listen Somali music. So which will you, Sharma Boy or Ilkaas? Ilkaas all day. Okay. All day. Okay, thank you for barnaamijkeena oo qad qaadatay. Waalaikum salaam. Soo dhaw bashka balcad. waa ku dhawahay magacaada walaal farxiyo halkan waxa ka rabaa inaan ka wareysto oo ogtahay waqtiga doorashada dalkeena Soomaaliya in la gaaray ahaan adiga ahaantaad yaa xilku dhiiban lahayd yaana ku jeclaan lahayd inuu hoggaanka ku qabto farmaajo jeclaan lahayd sababta farmaajo ku dooranayso waa maxay farmaajo dalku nabad u soo hoysay sax اوكي حق midaasi dhaamana ma la helayo xagga marka uga baxno siyaasadda waxa uu gudbeynaa han social media ahaan yaa dhehleed maanta boqorka raabka mise maxaa ku dhaay sheega raabka maanta ilka casa wata mise Sharma Boy keeba dooran lahayd ilka case okay ma santa soo dhaw okay assalaamu alaykum وعليكم السلام برو soo dhaw bashka balcad ku dhawaay bro magacaada walaal magacayda Cabdi Khafaar ku soo dhaw waxa raka ku wareysan waa ogtay waqtiga doorashada dalkeena Soomaaliya gaaray ahaan yaa dhehleed maanta xilka wadankeena u dhiiban lahayd كابتنك محمد عبد الله فرماجو قف كلام لها اوكي ما محي صوتك كدورن
ninka saaxiib waa nin wadani wallaahi waa nin daacadi dadkeena qof daacad ma jeclo oo waxay iska jecel yihiin wax quuqlo oo maxaa la dhihi jiray oo naftiisa u nool laakiin ninka waa nin wadani okay afarta sano hoggaanka waa maxay ku soo xasuusan kartaa inuu hay wadanka wax badan u soo kordhiyay ma wax badan oo ka bixin saaxiib horta aniga hal midun horta yarto aad wax badan u naxariistay waxaa kaloo aad iyo aad wallahi ninkaasaan ku jeclaaday dawladda oo sida askarta jeeska wax kasta oo noqoto waa dad iska daryeelaan ay hayno dadkan Soomaalida bini'aadamka iska socod magaalada iska dhaxyaa camal ay laakiin dad darajo leh oo la xushmeeyna oo wanaag badan ay noqdeen haddana maxaa la dhigay dad si goon u tababarnayba noqdeenba okay ahaan markii la dhaho dadka qaar waxay dhahayaan qaraxi ugu badnaa oo intuu hayay buu qaraxii weynaa oo dadka maanta dhibaatooyinka saameeyay buu ahaa waa maxay sidaas maxaa ka dhigay صاحبتا ومعارض نكاس يعني ضد نعبي درتي بس waxaan u maleynaa qaraxyaad loo raadsanay waxaaba ka masuul adii karaa ku hore wax Sheekh Shariif iyo Xasan Ikwan okay markaas siyaasadda ka soo baxno xanga maxaa ku dhahay sheekh fanaaniinta dhanka raabka ilkaas masharba kee baa dooran نيو والله أنا فنانين تسمع قواس مفاز قري لكن أنا فنان كلام مفاز قري. هان ما أنت هذا لو ده صنبا حق بشوف برشيا هيستا. ها. الكعس نيكا وديك ها. الكعس. أوكي كسر ولا عاد خفر. أوكي هاي شو دو بش قبل عاد. وادو أبو. ما قاعدة. ريان حالكم حارة هنا كورستو إن كل وقت هي دلكنا الصومالية دورش إنك كده عيسو يا هان لدي حلكو دي ولا. فرماجو دي صوبت أود دور نسمع. وايو مدحوينا ضاعدة ما نشرو قفك في عن. اوكي تهذاك الوحاره انه كويدي حق الرابك مثلا حق maxaa ku dhaayay fanaaniinta sharma buu misalka caskeeba dooran ilkaas dooran waa sababta ilkaas ku dooranay waayo de waa boqor raabka cidna ma gaadho ciyaalada xaq soo baxayn la sima maaha okay thank you waa maasante hay bashka balcad ka daa bashka balcad waan ku dhawahay faraada magacaada walaal abdiyare halka waxaa rabaa inaan ku wareysto oo ogtahay maleynaa golaalaha waqti dadkeena dalka Soomaaliya waqtigii uu doorashada dhicisa gaar ahaan maanta yaa dhiileed hoggaanka u dhiibanaya xilka maanta xilkani farmaajo adoor lahaa marka golaha ka baxno siyaasadda dhanka u gudubno maanta yaa dhihi lahayd sharma boy masaa'ilka caskeeba maanta saameynta ku yeela wadanka oo dhalinyarada maanta aad dhihi lahayd ilkaas waa legend ninkaas waa legend laakiin sharma boy waa nin hadda soo baxayo ilkaas waa inuu ka qalayaa sharma boy ninkaas waa nin u kala kacday waa inuu ka wareejiyaa waqtigiisa la gaaray waa inuu ka wareejiyaa marka sharma boy soo dhaw abdiyare soo dhaw walaashi soo dhaw bashka balcad wandhawahay magacaada walaal nasriin xasan okay waa ogtahay maleena waqtiga golaha doorashada la gaaray maanta yaa dhihi lahayd wadanka Soomaaliya hoggaanka u dhiiban lahayd farmaajo adaam cid kale okay waa maxay waxa sababta ku dooran lahayd farmaajo farmaajo waa daacad dad badan baan ogeyn okay maanta xagga dhanka siyaasadda ka baxno dhanka u gudubno maxaa ku dhaayay social media mis ahaan dhanka raabka sharma boy misalka caskeeda baa dooran sharma boy sababta ku dooranayso waa maxay waa ku yaro qosol badan wuu shaxdire badan yahay okay waxa ku xasuusta halkan nooga sheeg oo ana heesiisa ma qaybo okay waa maasante bashka balcad maxaa ka leedahay